iyadoo dhowrkii isbuuc ee ugu dambeeyay dagaallo xooggan ay ka socdeen gudaha deegaanka Axmaarada iyo guud ahaanba waddanka Itoobiya waxaa ka soo cusboonaaday dagaaladii iyo guulihii ay kala sheeganayeen dhinacyada ku dagaalamaya deegaanka Axmaarada waxaa halkaynu kula wadaagi doonaa saraakiisha amniga ee magaalada Addis Ababa oo soo bandhigay ciidan fara badan iyo hub markaasi ay ku qabteen caasimadda kaasi oo lagu khalkhalgelin rabay amniga caasimadda Itoobiya inta badan waxay la daaladhacaysaa dagaallo xooggan oo soo bilowday tan iyo isbedelkii ka dhacay dalka ee uu ku guuleystay xukunka Abiy Ahmed oo haatan ah ra'iisul wasaaraha waddankaasi waxaa dhinaca kaleeto soo xoogaysanaya khilaafka xooggan ee u dhaxeeya maamulka Abiy Ahmed iyo Tigreega oo ognahay dagaalkoodu halka uu gaadhay iyo waliba meesha uu ku dambeeyay waxaan guud ahaan ugu wadaagi doonaa xogihii ugu dambeeyay dagaallo xooggan oo wali ka soconaya deegaanka Axmaarada gobolka Wolo waxa isku haysto Axmaaro iyo Oromo walow dhanka dawladda ayaduna ay sheegatay in ay halkaasi kula dagaalamayso laba jabhadood oo labadoodu wadamacoodu yahay inay gacanta ku dhigaan gobolkaasi guud ahaan xogihii ugu dambeeyay ayaan halkan idinkula wadaagi doonaa hadday tahay markaadii kuugu horreysay si shargara barnaamijka oo la wadaag asxaabtaada kale aynu ku bilownay dhowrkii isbuuc ee ugu dambeysay waxaa dib saaxadda ugu soo laabtay isla markaana warbaahinta caalamka qabsaday dagaalada xooggan ee ka socda waddankaasi Itoobiya kadib markii ururka Fano ee deegaanka Axmaarada ay gacanta ku dhigeen caasimadda deegaankaasi ee Bahardar isla markaana ciidamada dawladda ay gebiyahaanba ka qabsadeen saldhigyo waaweyn iyo waliba hub aad u fara badan oo casri ah ayagoo waliba markii ay gacanta ku dhigaan caasimadaasi amar soo saaray kaasi oo ahaa in diyaaradda Ethiopian Airlines oo ah dhaqaalaha koowaad ee waddankaasi inaysan adeegsan karin hawada deegaanka Axmaarada taasi ayaa dab ku shiday dagaalka markaasi ka socda gudaha waddankaasi Itoobiya iyadoo arrimahaasi oo dhan ay taagnaayeen saraakiisha amniga ee magaalada Addis Ababa ayaa maanta war qoraal ah oo markaasi ay ku soo qoreen bartooda internetka ay ku leeyihiin waxa ay ku sheegeen inay gacanta ku dhigeen hub iyo waliba ciidan fara badan oo la soo geliyay caasimadda kaasi oo ujeedkoodu ahaa inay magaalada khalkhal amni ka bilaabaan isla markaana halkaasi ay ka fuliyaan weeraro ka dhana ciidamada arrintan waxaa ka horreysay hadal dhowaan ka soo yeedhay ururka Ola ee ka dagaalamo duleedka deegaanka Addis Ababa kadib markii ay sheegeen inay halkaasi ka bilaabi doonaan weeraro ay markaasi ku ekeynayaan dhammaan saldhigyada ciidamadu ay ku leeyihiin gudaha magaalada Addis Ababa si kastaba saraakiisha ammaanku ma aysan markaasi sheegin in ciidankan iyo hubkan ay qabteen ay urur gaara ka soo jeedaan laakiin waxay sheegeen in ay ahayd markaasi hub iyo ciidan fara badan oo la rabay in gebi ahaanba amniga caasimadda lagu waxyeelayo sifa gebi ahaanba indhaha caalamka loo tuso in Ethiopia ay gacanta ka baxday dhanka kaleeto waxaa iyanana isa soo taraya khilaafka xooggan ee u dhaxeeya maamulka Abiy Ahmed iyo Tigreega waxaan ogeyn tan iyo isbedelkii dalka ka dhacay inaysan qowmiyadda Tigreega iyo waliba sidoo kaleeto Ethiopiada weyn ay gebi ahaanba isku fiicnayn dagaalkii 2021 ee markaasi soo idlaaday 2022 ayaana markaasi ka maqraati kacaya in labada dhinac isku fiicnayn isla markaana labadooduba aysan raalli iskaga noqonaynin inay xukunka wada qaybsadaan Tigreega ayaa lagu qanciyay in gebi ahaanba dib loogu dhisayo dhulkii laga burburiyay isla markaana xukunka iyo waliba wax kasto awoodana la qaybsanayo laakiin arrintaasi ma aysan suurtagelin sida uu sheegay in ninka ugu sareeyo jabhadda TPLF ee ka dagaalanto deegaankaasi Tigreega waxa uu sheegay in gebi ahaanba heshiisyadii ay dawladda la galeen gebi ahaanba la fulin waayay taasina ay sababtay in gebi ahaanba ay iskaga baxaan dhankooda dhammaanba heshiisyadii dhexmaray dowladda federaalka hadalka jabhadda TPLF ayaa ku soo-aadayo xilli ururka Fano ay gebi ahaanba gacanta ku dhigaan inta badan deegaanka Axmaarada deegaankaasi intiisa badan ay ka wadaan dagaal gorilo ay markaasi ku beegsanayaan ciidamada militariga halkaasi lagu aruurinayo waxaad moodaa ilaa iyo xilligan dagaalkaasi inuusan fara ka qodnayn iyadoo dhawaan dowladda Mareykanka iyo Ethiopia inta badan ay isku fiicnayn tan iyo dagaalkii dhexmaray ururka TPLF iyo ciidamada militariga waxa ayagu ay ugu deeqeen lacag aad u fara badan oo gebi ahaanba dib loogu dhisayo kaabayaasha dhaqaalaha dhanka militariga iyo waliba dhinacyo badan oo Ethiopia ay ka liidato gudahan arrintaasina waxyaabaha ka soo kordho waxaynu kula wadaagi doonaa qaybaha dambe ee wararkeena iyadoo waliba aan eegayno goobaha markaasi dagaalada ay ka socdaan iyo waliba tallaabooyinka xiga ee ciidamada militariga waddankaasi ay qaadi karaan xilli kasta Abiy Ahmed dib ayuu tuutaha u qaadan doonaa
guud ahaan intaasi ayuuna warkeena naga eegayay taniinta barnaamijkan xukun wadnoon waxaan idinka tirsan samaynaa